hay'adda Candlelight ayaa tababar ku saabsan dhibaatada gudniinka fircooniga ah ugu soo gabagabaysay magaalada Burco 48 xubnood oo ka kala socday 6 tuulo oo ka tirsan gobolka Togdheer. Tababarkan oo soconaya muddo 3 cisho ah ayaa gabagabay tababarkan waxaa ka hadlay madaxa hay'adda Candlelight ee gobolka Togdheer Xasan Cabdilaahi Faarax iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta hay'addaasi waxaana ka mid ah hadalkoodii. Tababarku wuxuu ku saabsanaa tacadiyada haweenka loo geysto iyo muxuu ahaa kobcinta gudiyada tuulooyinka dhinaca caafimaadka iyo hogaaminta waxa ka qayb qaatay oo ka soo qayb galay tababarkan oo ka faa'iideystay 6 tuulo 48 muxuu qof oo isugu jira haween iyo ragba ujeedada laga lahaa waxa weeye kala weyn garanayna markii tacadiga leenahay haweenka laakiin naga tacadiga ugu weynayna haysta ee dee loo yahay waxa weeye ka gudniinka fircooniga ah oo runtii ah aafo weyn oo hablaheena iyo dumarkeena aafeeyay waxaan runtii aan jecelahay inaan faahfaahiyo caafimaadku meelihii uu taabanayay oo u badnaa runtii waxaan leeyahay dhibaatada gudniinka fircooniga iyo sida looga wacdi gelin lahaa bulshadeena bal diiniyan waxay culimadeenu ka tiri oo sheekh weynala joogay iyo ka qayb galayaasha laftooda oo si wanaagsan iyaguna uga qayb qaadanayay tababarkan oo muddada 3 maalmood socday waxa soo qaban qaabiyay xafiiska caafimaadka ee Candlelight waxaanu ku saabsanaa la dagaalanka dhibaatada baahsan ee ah gudniinka fircooniga ah xubno ka mid ah ka qaybilaasha tababarkan oo ka hadlay halkaasi ayaa soo dhaweeyay tababarkan isla markaana xusay inay wax badan ka kororsadeen muddada uu socday tababarku waxaana ka mid ah hadalkoodii wax badan oo aan hore ugu iftiinsanayn ayaa ii iftiimay waxaan u mahadnaqayaa hay'adda Candlelight saa u soo bandhigtay dhibta ay leeyahay gudniinka fircooniga iyo farxadda iyo reereynta uu leeyahay inanta la sunneeyaa beelayagii farayna hablaha inaan la xubnaha taranka laga jarin la qodbin la toltolin sidooda ay yihiin loo badaayo ama laga dhiijo hay'adda Candlelight ayaa dadaal weyn ugu jirta la dagaalanka gudniinka fircooniga ah Kays Axmed Dagaale Home Cable TV Burco.